madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, wasiirka amniga Jenaraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil iyo golaha xukuumadda, gudoomiyaha gobolka Banaadir Jenaraal Xasan Maxamed Xuseen Mungaab, taliyayaasha ciidamada, taliyaha nabad sugidda Mahad, taliyaha ciidanka xoogga Odawaa iyo dhammaan saraakiisha kale, mudanayaasha labada aqal, safiirada wakiilada beesha caalamka ee aan saaxiibada nahay, martida guud iyo ka soo qaybgalayaasha xuska xafladda 82aad ee sanad guurada aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed. waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaa maanta oo kale sanad walba xusnaa aasaaska hay-ad dowladeed ee Soomaaliyeed oo soo adeegtay tan ugu faca weyn. waxay soo shaqaysay xilliyo iyo waayo kala duwan. adeegeeda bulshada waa joogto goor iyo goob walba. mudane madaxweyne, sida aad ku daawateen oo kuna maqasheen bandhiggii warbixinada aan idiin soo gudbinnay, indhihiinana aad ku arkaysaan sanadkan dhammaaday ee 2025 ilaahay mahadiis wuxuu noo ahaa sanad aan gaarnay guulo badan, amniga oo horseed u tahay nabadgelyada caasimadda Muqdisho. waxaan kaloo horumarinay tayada booliska ee shaqo, tababar, xirfad aqooneed dal iyo dibadba, taasoo keentay hoos u dhac ballaaran oo ku yimid falalka dembiyada dalka ee ka dhici jiray sidaad ku aragteen muuqaalkii la baahiyey. sidoo kale sanadkan waxaan hirgelinay tayeenta nidaamka maamul ee ilaalinta cadaaladda iyo maareynta xogta, iyadoo aanu sameynay database xog ururin lagu tiro koobayo gaadiidka ciidanka booliska si loogu hortago in loo adeegsado falal amni darro. Number 2, waxaan sameynay gal maamul case file management system oo isku xiri doona booliska, xiraalinta, garsoorka iyo asluubta. waxay dardargelinaysaa fulinta cadaaladda iyo shaqada. waxaa sidoo kale si ballaaran oo olole ah u sara qaadnay dhismayaasha xarumaha booliska Soomaaliyeed oo ay ugu weyn tahay taliska guud, iskuul boolisiyo, isbitaalka booliska ee Madiina iyo saldhigyada ku yaala maamul goboleedyada iyo caasimadda. sanadkeennan dhammaadka ah waxay saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed nasiib u yeesheen inay ku guuleysteen inay sidii ugu habbooneed u guteen sugidda amniga diiwaangelinta dadweynaha Soomaaliyeed, waxayna u diyaar garoobayeen si buuxda shaqada sugidda doorashada dadweyne ee caasimadda Muqdisho ka dhacaysa 25 bishan markii ugu horeysay tan iyo 1969. waxay doorashadu noogu dhacaysaa ilaahay idinkii si nabadgelyo ah, hufan, adeeg qurux badan oo niyadda dadkeenna ku harta. mudane madaxweyne, waxaanu diyaarinay qorshe howleedka iyo hiigsiga sanadka cusub ilaahay idinkii oo ah casriyeynta nidaamyada iyo adeegsiga tiknoolajiyadda howlaha booliska Soomaaliyeed iyo sii wadidda iyo kobcinta howsha hadda socota. waxaan hortaada ku cusboonaysiinaynaa ballanqaadkayagii ciidanka booliska inaan bulshada Soomaaliyeed ugu shaqaynayno hagar la'aan, ciidan leh naxariis iyo turaal, tayada iyo tabarta booliska sare u qaadayno, ku dadaalayno inaan gaarno meesha maanta aan joogno meel ka wacan. mudane madaxweyne, guud ahaan mahad ilaahay baa leh. sidoo kale waxaan mahadlay madaxweynaha iyo wasaaraha xukuumadda sharafta leh ee noo igmaday naguna garab taagnaa hawsha aan qaranka ummadda Soomaaliyeed u hayno. waxaan qadarin iyo bogaadin mudan saraakiisha iyo ciidanka Soomaaliyeed ee shaqadan goostay har iyo habeen inay u taagnaadaan. waxaan ka mahad celinaynaa wada shaqaynta wanaagsan ee laamaha ammaanka kala duwan ee guud ahaan wada shaqaynta bulshada Soomaaliyeed nagala dhaxaysa. ugu dambeyn, waxaan u mahad celinaynaa saaxiibada iyo walaalaha beesha caalamka ee nagu garab taagan inay Soomaaliya noqoto meel wanaagsan oo amni badan. ilaahay ha guuleeyo booliska iyo dhammaan ciidanka Soomaaliyeed. waa mahadsantihiin.